taliyaha guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani ay weheliyaan qaar ka mid ah hogaanada ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ka soo kacay taliska guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa soo gaaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool waxaana uu taliyaha iyo wafdigiisu ay kulan ballaaran kula qaateen gudaha magaalada Tukaraq odayaashii iyo waxgaradka deegaankaasi Tukaraq isagoo ka xog wareystay xaaladooda nololeed odayaashii waxgaradka ayaa si mug iyo miisaan loo soo dhaweeyay wafdiga oo hogaaminaya taliyaha guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxa kale oo taliyuhu halkaas uga mahad celiyay bulshada deegaanka sida mugale ay u soo dhaweeyeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland isagoo sheegay in ciidanku yahay ciidankoodii halkana u jooga xal nabadeed loona baahan yahay in ay la shaqeeyaan dadka deegaanku sidii ay hore ugu soo dhaweeyeen taliyaha guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa gaaray aaga hore ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland isagoo ciidanka qaranka ugu hambaliyay shaqada adag ee qaranka u hayaan taliyaha guud ee ciidamada qaranka ayaa mari doona dhammaan fadhiisamada ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland uu ku leeyahay deegaamada ku teedsan gobolka Sool iyo Xaysimo taliyuhu sheegay ujeedada socdaalkiisu inay tahay sidii nololeed ee dadka deegaanadaasi ku teedsan isagoo sheegay in mashaariic badan ee xukuumaddu ka fulin doonto qaarkoodna ay ka hirgelisay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool Barkad Cumar Axmed warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool Barkad Cumar Axmed warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool